وقلكدايا وقابريايا وقلكدايا وعقبان كرايا ووطني وقابريايا وقلكدايا وقابريايا وقلكدايا وعقبان كرايا ووطني عقلي وعليك كرامة وطية وقرع علمي له وقتي ولا صلاة ووطني اسمي وطني اسمي وطني عقلي وعليك كرامة وطية وقرع علمي له وقتي ولا صلاة ووطني اسمي وطني اسمي وطني نبضك وطني ووطني وحيال هذا النعم ووطني وحبذا الدورة ووطني وطنك دسيا ووطني بشاد ورطان ووطني وينه لترا ووطني waxaan halkan isugu nimid oo kulankan quruxda badan leh oo ku saabsan yahay waa kulan isasaara oo wajiyo badan leh waa sabootintii guddoomiyihii hore ee UK mudane xuseen aadan cadde iyo soo dhaweynta guddida cusub ee uu guddoomiye maxamed cali uu hogaaminayo xafladda waa inoo furan tahay waxay inoo daadihin doonaa aan ku soo dhaweynayaa oo xafladda inteeda dambe inoo wadi doonaa xogayaha saxaafadda qaaradda Yurub Axmed Carab waxaan si gaar ah u salaamayaa gudoomiyaha iyo guddida caawa aynu martida u nahay aanu ka tirsannahay UK Maxamed Cali iyo gudoomiyaha London iyo dhammaanba madaxda qaaradda Yurub iyo Nustambeedka culus ee xisbiga wadani xafladan waxa loogu talagalay oo asalkeeda iyo asaaskeeda marka hore uu ahaa inaan ku sagootino gudoomiyaheennii muddada 3 sano soo shaqeynayay Mujaahid Xuseen Aadan Cadde oo kulay barnaamijyo badan caawa loogu talagalo inta dambe aynu ku soo bandhigi doono xafladeenu waxay ku saleysan tahay maanta insha Allah gudoomiyaheena Xuseen Aadan Cadde Mujaahid Xuseen oo ku sii sabootinayno iyo gudoomiyaheena cusub Maxamed Cali gudoomiyaha London iyo gudoomiyaha Yurub oo kaashe iyo dhammaan guddida sharafta la dalacday iyo kuwii ku soo birtay dhammaan ku soo dhaweynayna horta waxaan soo dhaweynayaa guddida cusub gudoomiyaha Maxamed Cali gudoomiyaha Xuseen Aadan Cadde waxaan leenahay safar salaama dhammaan madaxda cusub ee Yurub ya madaxda cusub ee UK waxaan rajaynaynaa more isbedel iyo shaqo culus baan idinka inaga fadhinaa marti sharaftana dhammaan waan soo wada dhaweynayaa ilaa maanta waad arkaysaan halaan waliba shaqaday qabato kullu isaga ku magac leh waxaan leenahay safar salaama gudoomiye shaqo fiican oo qabtay Mujaahid Xuseen Aadan Cadde oo runtii ahaa ninkii aniga lafteeda ay magacaabay laanteedana furay oo qabtay shaqo fara badan UK gudo iyo dibadba ka qabtay runtii gudoomiye waxaan ku leenahay thank you very much shaqadaad qabatay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay marka waxaan halkan aad ugu mahad celinayaa gudoomiyahayga sii baxaya gudoomiye Xuseen Aadan Cadde mujaahidka oo aan wax badan la soo shaqeeyay wax badan ay la soo qabtay laanta South London aniga shakhsi ahaantana ii magacaabay markii la soo doortay laanta gudoomiyaad baan kaaga mahad celinayaa waliba waxaan ka codsaday inuu laanta aan naga sii bixinayna la sii shaqeeyo inta horta aan iska baranayno gudoomiyaha cusub ee aan la sii jaan qaadayno waxaan leeyahay ilaahay xilkii aad soo haysay ilaahay ha ka abaal mariyo anagu hadii aan nahay North London abaal weyn aan uga haynaa sidii fiican uu noola soo shaqeeyay wuxuu ahaa shaqsi aad u fiican oo yacni dadka isku soo jiida dadka isku keena marka anaga waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantahay gudoomiye waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub Maxamed Cali waxaan aad u sabootiyayaa Xuseen Aadan Cadde waxaan kaloo aad u soo dhaweynayaa Mr. Cukaashi gudoomiyaha Yurub only waxaan u baahanahay inaan xusbiga aad u dhisno oo hawsha qabano gudoomiyaha cusubna nice to meet you aniga waad garanaysaa magacayga Nuura Aadan iminka
dee waxaan u diyaarahay inaan si fiican kuula shaqeeyo haddii ilaahay idhaahdo guddoomiyahayagii horena waxaan leeyahay aad baad u mahadsantahay shaqada fiican aad nala soo qabatay runtii waxaa sii sabootinaynaa waxa weeyaan in aadan cabde oo anigu aada isku naqaano runtii ilaa waqtigii hore hargeysadii hore gudoomiyaha cusub maxamed cali waan soo dhaweynayaa maxamed cali adna waan kusoo dhaweynayaa qaaradda yurub dhammaantiin talaan kadib halkan waxaan kusii sagootinaynaa gudoomiyaheenii hore xuseen aadan cadde oo aad u soo shaqeeyay runtii xagga xisbiga hadday noqon lahayd iyo haddii ay noqon lahayd dhinac walba dhallinyarada haweenka dhinac walba mas-uulkayagii ahaa waxaan leenahay waanu sii sagootinaynaa oo noo dallacay garabkaaga la ahagalo waxaan soo dhaweynaynaa oo kale gudoomiyaheenna cusub maxamed cali oo anigu weliba aan gaar isu naqaano xuseen aadan cadde oo runtii ku suntan in intaasoo wadaniyiin ah oo reer wadaniya oo isjeceli ay goob soo wada fadhiistaan ninka keliya ku suntan isagana aad iyo aad ayaan leeyahay gudoomiyaha cusub annagu ninaanu iminka isbaranayno ma aha waxaan u malaynayaa inaa u haysataan in iminka xisbiga uu dusha kaga soo booday laakiin wuxuu ahaa hogaamadii xisbiga markii uu ururka ahaa raggii ururka ka soo bilaabay xisbinimo soo gaadhsiiyey ayuu ka mid ahaa dhammaan waan soo wada dhaweynayaa guddida cusub waxaan inoo rajeynayaa inaynu halkan kasii ambaqaadno aynu xuseenna sii wadacno de kolley hargeysu tagayaayo 3 bilood 4 bilood baynu kaga daba tegi doonaa insha allahu laakiin halkan dhaqaale laynooga baahay ninkii imika kun hore aynugu qornaay ayaynan 26 guddiyaa la sameeyey demi kun iska bilaab xuseen aadan cadde runtii taariikhdii uu noo yimi UK aad bay u dhinsanayd maalintii uu yimi ilaa maantana intaas oo laamood ayuu noo furay aad buu noola shaqeeyay laamaha haddaan halkan waxaan kasii sabootiyayaa gudoomiyaha qaaliga ah haliyeyga mujaahidka xuseen aadan cadde anigu xuseen aadan cadde markii la dooranayay waan joogay goobjoog baan ahaa iminkana sabootigiisii goobjoog baan ka ahay talabaad ee loo baahan yahay waxa weeye laga filayaa guddidiina idin taala sida u samayn lahayd u iibin lahaydeen programka xusbiga caafimaadka nabadgelyada qabyaalad baabi'inta shaqa abuurka xuseen runtii wax badan baa soo qabatay waxaana rajeynayaa intaa in leeg inaad ka qabanayso wadankii insha Allah waxaan jecelahay xilka iminka aad qabatay UK sida wanaagsan u haysay mid ka weyn inaad maartay xaggan ka qaban doonto insha Allah xisbiga ku baahan mar walba uu ku baahan yahay runtii wax badan waa qabat wax badan oo ku soo kordhisay marka insha Allah waxaan leenahay safar salaama maadaama inuu xisbi qaranahay gudoomiyaha hore xuseen aadan cadde run ahaantii dadku bala UK ba ku taqaaneene siinay wuxuu ka aasaasay meeshii ugu horeysay xafiiskii ugu horeeyay xisbiga wadani yeesho dadku waxay aad iyo aad u shaqeeyaan baad moodaa markay doorashadu soo dhowdahay ama ay xamaasadu jirto laakiin markaan xamaasadu jirin dadku way kala seexdaan xuseen wuxuu inoo maraynu sii kala seexanaynay oo qof kasta uu shaqo tagay ay dib energy cusub inoo geliyay marka xuseen waxaan ku leeyahay jazaakallahu khayran alfa marra insha Allah waxaan si gaarana u salaamayaa barnaamijka soo qaban qaabinta laanta Brisbane soo qaban qaabisay ay ku sii sagootayaan xuseen aadan cadde kuna soo dhaweynayaan isna mas'uulkeena cusub iyo guddida dhamaantoodba xisbiga wadani dhammaan taageerayaashiisa iyo xilhayayaasha xisbiga iyo xilsugayaasha xisbiga intaba waxaan ku dardaarmayaa waxa la inooga baahan yahay siyaasad hufan oo ka hufan hadal xumo ka hufan nusqaan ka hufan cay iyo ka hufan aflagaado ayaa la inooga baahan yahay inaynu dalka ku hanano oo ka hufan qabiil Allah yaftax عليك aad baan ku faraxsanahay inaan maanta halkan joogo sida la idin sheegay dhinaca siyaasadda la idin qaabilsanahay we have to take wadani to Westminster xuseen waa ninka nasiib u helay isagoo oo mujaahida raggii markii dee waqtigii halganka habeenkii la soo galay Hargeysa waa ninka kaliya nasiib u helay in isaga iyo aabihii iyo awowgii ay dagaalkii meel kaga wada ridaan xarunta Barjeex ee magaalada Hargeysa ninka nasiibka heli kara waxa weeye dad fara ku tirisa in dhibatay iyo in noolba taageerayaashii uu xisbiga ku soo kordhiyay iyo shaqadii uu xagga ka qaban jiray ayaa kulliba aad loo bogay oo waxaan u malaynayaa inuu noqon doono gudoomiyaha abaabulka iyo xisbiga Muradjeex marka
aad baanu xuseen ku miskarayn doonaa marka hore waxaan u mahad celinayaa amaba ku hambalyeynayaa gudoomiyihii hore UK xilka ku wareejiyay gudoomiyaha cusub waxaan leeyahay xilka cusub ee lagu magacaabay ilaahay ha kuu fududeeyo gudoomiyaha cusub maxamed cali oo aad saaxiib u nahayna waxaan hubaa inuu yahay nin howlkara oo ka soo bixi doona hawsha iyo tiimka la shaqeynaya ee loo xulayba waxaan hubaa inay ka soo bixi doonaan hawsha waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa oo aan leeyahay mabruuq xilka cusub ee lagu dhiibay intii aad dadaashayna aad hore u soo dadaashayna khayr allah ka siiyo xuseen aadan cadde waa saaxiibkay waa dhalinyaradii aanu markii hore ku aasaasnay North London markii dambena wuxuu noo noqday anaga gudoomiye intiina kulli day waxyaalo badan dadku iska jiraan laakiin intiina waa la shaqeynayeen ma sha Allah imika waxaan leenahay xilka cusub ee lagu magacaabay mar labaad iyo mar saddexaad baan kula shaqeynaynaa xuseen aadan cadde inta kadib waxaan aad u soo dhaweynayaa saaxiibkay maxamed cali oo xisbiga markaan ururka ahayn ilaa iyo xisbinimadiina ka wada shaqeynay oo meel wanaagsan isla soo gaadhnay isna gudoomiyaha cusub waxaan leeyahay hambalyo waan kugu soo dhaweynaynaa waana kula shaqeynaynaa waxaan idinka codsanayaa sidii xuseen aadan cadde ah ula shaqeynayseen inaad maxamed calina ula shaqeysaan marka hore waxaan aad iyo aad uga xumahay falka ka dhacay waddankeena Soomaaliland galabta iyo maalmihii la soo dhaafayba magaranaysa xisbigan xukuumadda hay waxyaalaha ku kacaya ay tahay waxyaalahan la aqbali karin waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha Xuseen Aadan Cadde oo muddo badan wada shaqeynay oo magaranaysa waxqabadkiisii ay tahay markhaati madoon maanta inuu magaranaysa sii dalacay waxa kaloon soo dhaweynayaa maxamed cali oo isna magaranaysa le ku soo dhawo madasha waxaan sida oo kaleeto halka kan ku sii sagootinayna halgamaaga xisbiga xilkaska xisbigu u igmaday inuu qabto xilka adag kii uu hayay markii la arkay inuu yahay qof munaasib ku ah Xuseen Aadan Cadde waxaan leenahay waxaan kula garab taaganahay hil iyo ho ayaanu kula garab taaganahay kaalintaad xisbiga ugu jirtid waxaan horta aad iyo aad u salaamayaa Xuseen Aadan Cadde saaxiibkay oo dalacay inuu dalacay aad baan uga hambaleynayaa gudoomiyaha cusub maxamed cali waan soo dhaweynayaa laakiin mid ogaada anagu haddii aanu nahay abwaanada ma nihin xisbi ma noqon karo anagu waxaan taageersanahay tartankaan taageersanahay anagu laakiin hadba qolada muxuu ahaa cadcad ayaanu aad u taageeraynaa oo niyada kala jiraan madaxda heer qaran ee wadani iyo kuwa heer qaaradeed iyo kuwa heer UK iyo hablaha qaaliga ah iyo inamada kale waxaan isku wada salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaanta kadib maxaa la odhan jiray hoosba hadal leh caawa xafladan waxaynu isugu nimi oo reer Bristol ay u soo qabanqaabiyeen iyo xubnihii kale ka soo shaqeeyayba inaynu ku sii sagootino gudoomiyihii xisbiga wadaniga UK mudane mujaahid Xuseen Aadan Cadde waxaan leenahay waynu sii ducaynaynaa waynu sii dardaarmaynaa ilaahay meeshaas ma garanaysaa guul iyo wanaagga kala kulmiyo mustaqbalka ayaanu ku leenahay we wish you good luck runtii Xuseen waxaan ku bartay aan ku ogahay inuu yahay nin la tashile oo dadka la tashada oo dhageysta oo taladana qaata Xuseen waxaan ku ogahay aan kula shaqeeyo inuu yahay nin qowl leh oo waxa wada kashaan aan ka bixinay ka soo baxa oo sidoo uga soo baxa waxaan wareejinayaa faylkaas oo ah labadii sanadood ee aan gudid ahayn waxqabadkii xisbiga hadday yihiin laamaha xisbiga u dhisan hadday yihiin taageerayaasha xisbiga u diiwaan gashan hadday yihiin dhaqaalihii iyo dakhligii xisbiga soo xoreeyay 15 gudoomiye magacyadoodii teleefoonadoodii iyo meelaha laamaha iska furan yihiin kula kan caawa wuxuu ku saabsan yahay inaynu sii nabadgelino ama sii wadacno Xuseen Aadan Cadde kuna soo dhaweyno maxamed cali gudoomiyaha cusub Xuseen waxaan leeyahay saaxiibkay ilaahay ku nabadgeliyo kolay waa laga soo hadlay waxqabadkaaga iyo hawliyaad halka soo qabatay
dee xisbiga wadani bayna waqtigiina way ugu yaryahay waxaynu u baahanay doorashadii wax yarba ka hadhay sidaynu u guulaysan lahay sidaynu xisbiga dhaqaale ugu heli lahay dagaal badan baa inoo yaalla sidii aynu iibin lahayd dee musharaxeena cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi xuseen waxaan leeyahay ku noqon maayo ammaantaadii ilaah baa ku muujiyey wakaa qof walba kuu qiraaya waxaana ilaahay kaaga baryaynaa inuu kuu fududeeyo meel kastoo aad joogtid meel kastoo aad tegtid inaad guushaa mar walba ninkii hanta ilaahaynu kaa dhigo xisbiga waddani markasta dadkiisa u turaya annagu waxaa la ogyahay ee la doonayaa inay fooda waddanku ka dhacdo waxaa la doonayaa u joojin mayno silmigaan ku wadaynaa qalinkaan ku wadaynaa warqadan ku wadaynaa codkeenna waa gaadhsiinaynaa laakiin gaadhi maayaan fooda waddankeenna ka dhici mayso waatay doonayaan maanta hadafkay doonayaan inay xabadda ee shacabka dib loo dhigo mana aqbalayno mana qorayno shacabkeenna maanta dhibaataysan ka hortegi mayno waxaa kaloo jirta laanta bristol waxay samaysay shahaadooyin qiimaynta shahaadada lagu sameeyey waxa weeyaan lama qiimayn dadka iminka xilka sii haya waayo xilkii bay hayaan laakiin xubnaheenna xilalkay hayeen ka tageen sida xoogayihii guud ee UK oo kale tusaale ahaan ee xilalka cusub qabtay laakiin dhammaanteenba waxaan mudannahay tixgelin taasna waxaa laga sugayaa maamulka cusub ee UK ciddii ay maaragtay iyagu u qiimayn doonaan mustaqbalka insha allahu kalaantu waxay ugu talagashoon xubno laanta ka tirsan hal xubin oo laanta ka tirsan Bristol hal xubin oo UK ka tirsan London iyo xubnaha UK ka dalacay ee Yurub dalacay xubnaha Yurub ka dalacay ee heer qaran dalacay waxaan u mahad celinayaa Ahmed gudoomiyihii iga horeeyay oo si sharaf leh xilka ugu soo wareejiyay maanta xukuumadda talada haysa waxaa garwadeen ka ah Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo waan inaynu taariikh weyn iyo sharaf iyo qiimo u hayno laakiin inta madaxweynaha shanaad imanayo ee xilka uu la wareegayo dalkan isaga ayaa ka mas'uul ah wixii sharaf ee dalku leeyahayna isaga iska leh wixii xumaan ee fool xumaan isaga yeelanaya sababtoo ah madax meel ka sareysa ma jirto inagu Muuse Biixina mayna dooran cid kalena mayna dooran dadkan xirxiraya dadka mayna dooran mas'uuliyadu waa halkeeda in meel kale lala qabto maaha waxa weeye qofka leaderka ahi waa inuu shaqadiisa ka soo baxaa isaga mas'uuliyadiisa iska ay tahay in hawsha umadu u dhiibatay uu ka soo baxo waa run oo xisbigu aad buu u dhisan yahay halkan waxa la sheegay imka uu aad carabka loogu celiyay maxamed xisbi badan xisbi dhisan oo laamihiisu dhisan yihiin ayaanu ku dhiibnay halka ka sii wad ayaa aad loogu celiyay shaki kama joogeen laamihiisu dhisan yihiin 15 laamood oo sida la sheegay imka maxaan ku raahdaa laantii walba ugu yaraan 100 xubnood oo member ay leedahay waxa weeyaan waa shaqo aad u weyn oo la qabtay shaqo aad u weyn oo runtii la qabtay weeye waxaana ku ammaanan Axmed Calilaahi iyo Xuseen gudoomiye Xuseen iyo tiimamkoodii kala duwanaa ee la shaqeynayay iyo gudoomiyeyaasha laamaha iyo madaxda laamaha ayaa aad ugu ammaanan waxa kaloo aad ugu ammaanan sida hore loo sheegay memberska diyaarka u noqday in hawsha ka qayb qaataan laaba aan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub ee UK Maxamed Cali Maxamuud iyo gudidiisa ayaan kaliya laab ku soo dhaweynayaa waxaan kala soo dhaweynayaa gudoomiyaha qaaradda Yurub iyo gudidiisa oo dhameystiran waxaan kala kaliya laab ku soo dhaweynayaa iyo gacmo furan gudoomiyaha London iyo gudida loo magacaabay intaba waxaan Ilaahay uga baryayaa in xilka loo magacaabay Ilaahay uu fududeeyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa gudidii hore ee ila aasaastay UK ama layla magacaabay muddadii ay la shaqeeyeen waan uga mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan xubnihii gudida UK ee inta badan aan soo wada shaqeynaynay maxamed cali waxaan leeyahay oo isagana dardaaran kale kaga tagaya laamahaagana ka warhay 15 laamood waa inaad kool garaysaa habeen kasta aad la xiriiri kartaa waxaan kugu wareejinayaa oon mahad uga celinayaa maxamed carab xilka muddada dheer uu hayay dokumentkii iyo sirtii xisbiga oo dhan hadday dhaqaale tahay
iyo hadday tahay wax kaleba halkaasay ku dhan tahay